Okay, akhyaarta kusoo dhawaada waa casharadan Excelka af Soomaali ku baxay. Waxaan ka fargareynaynaa clipkan ku fargareynaynaa Flashfill aan sameynaynaa aan leenahay Flashfill. Horta Flashfill maxaa waaye muxuu taraa? Cashirka hore waxaa ogeydeen inaan soo qaadanay data editingka sida maaragtay dhacday wax looga bedelo. Flashfill-kana wuxuu sameeyaa si automatic ah inuu dhaarada aad rabtid uu ku soo sooco oo uu ku fill garay intii aad ka rabtay rekoorka inuu kaaga soo saaro uu ku buuxiyo kadib markii aad bartid ama u sheegtid waxa aad rabtid. Okay, aan fiirino marka tusaalaha ugu horeeya bilowna. Halkan waxaan la dhahay hadda kuwan waa employees marka social security numbers oo ujeedaan maaragtay inay ku jiraan letters marka ma ahan social security saxa, laakiin tusaale ahaan aan usoo qaadanaynaa inta kaleeto social security numbers ay oga eg yihiin. Marka waxaan la dhahay the last boqolaal haysaa ama mararka qaarkood kumaan kun haysaa oo maaragtay employee social security numbers ah. Waxaa marka managementga waxa ku dhahan waxaan rabnaa the last 4 digitska ugu dambeeyo oo social security-da employee inaan maaragtay aan noo soo print garaysid noo soo socdid. Marka maanta dhan ay qaadanay marka 223 maanta dhan haddaa wadid maanta dhan ay qaadanaysa Soomaali kumaan kun markay yihiin. waxaan isticmaalaynaa marka that's where Flashfill comes handy. Waxaan leenahay 223 q waxaan tegaynaa data tabkaan tegaynaa marka data toolska meesha ah tabkaas kumaankaasaan taabanaynaa walaac mujida magical waa noo buuxiya. hadduu thousands ahaan lahayd meeshaan ay wada buuxi lahayd saas u buuxin lahaa last 4 digits. haddaa ku compare garaysid ama isbabar dhigtid waa ujeedaa last 4 kan kala soo baxay kan last 4 kala soo baxay kan last 4 kala soo baxay. Okay, aan laabano marka mar labaad aan sameyno mar labaad aan sameyno 223 q aan sameynay. waxaan tagnay marka home tabkan aan joognaa waxaan tagnay data tabka waxaan kasii tegaynaa data tab groupkan la dhaho data tools kaasaan click garayna waa aragtaa marka waa buuxsamay. sidaas marka waa markaa isticmaalaysid taabka aad kala soo baxaysid commandka tabska gudahooda kala soo baxaysid waxaa jira short way oo loo sameyn karo aa jira 223 q markaa qortid aan soo noqono halkaanaan gelinaynaa 223 q markaan qortid control iyo waxaa isla taabanaysaa letter e isla qabanaysaa control plus e wakaa marka shortcut key haddaa baratid uma baahnid inaa mar waxaa noqonaysaa efficient quickly u sameynaysaa. waxaa laga yaabaa farta inaad ka saartid managementigi within 2 minutes waxay u baahnaayeen oo dhan. marka waxaan isticmaalnaa hadda control e marka horena waxaan isticmaalayna data tabkan kala soo baxayna commandki ma ahan keliya the last 4 of numbers ma ahan keliya waxaan kaloo isticmaali karnaa hadda intaa ujeedaa months waaye waxaana la weydiiyey saddexda ugu horeysa sidoo kale waxaan isticmaalaynaa jaan aan qoraynaa macnihii jazz waxaa communication la sameynaynaa Excelka aan leenahay that's what I want control iyo taabatay waa kaasa saddexda ugu horeeyay uu noo soo wada uu noo soo saaray. sidoo kale waxaa ku sameyn kartaa saddexda ugu horeyso kaleeto 714 soomahan control e taabo waa kaasa walaac oo noo soo siiyey. marka thousands hadday yihiin thousandskii recordkina saasoo kale uu noogu soo saari lahaa. waxaan kaloo in the middle xataa recordka dhexdiisa wax waa kala soo bixi kartaa halkaan oo kale 294 y marka control e taabo waa kaasa isku fiiri marka waa saddexdan uu kala soo soconaya. mararka qaarkood waxaa laga yaabaa in lagu diro initialka xarafka ugu horeeya iyo xarafka ugu dambeeya in lagu dhaho aan rabnaa initialka waxa ay ku dhahaan afka qalaad. initialka marka aad maqlaysid waa magaca first name-ka last name-ka labada erey ugu horeysa laga soo qaatay meeshaan marka sidee kan oo kale a iyo waxaan leenahay j okay control e aan taabtay that's all I did. ma fahantay markaan u sheegay waxaan rabaa marka fiiri meesha wuxuu dhahay cali jaamac aj ka soo qaatay maxamed cusmaan imam dadkan they're not people that I know but waxa waaye waxaan ku sameysanaynaa tusaaleheena sumaya suule waxa ka soo qaatay ss ka soo qaatay
saasaa lagu sameyn karaa. mararka qaarkood waxaa jirta excelka inuu maaragtay marka ugu horeyso uu ku fahmi waayo, marka labaad ama marka saddexaad uu ku fahmo. tusaale ahaan hadda haddaan qoro monday haddaan qoro oo aan dayska maalmaha dayska ilaa friday aan tagno ilaa fridays haddaan tagno okay waxaan qaldoyaa mondaygaan qaldoyaa okay ilaa friday haddaan tagno marka ilaa waxaan tegaynaa friday monday to friday. haddaan marka dhahno hadda waxaan rabnaa inaan kala soo baxno saddexdan ugu dambeysa day haddaan dhahno inaan kala soo baxno sidoo kaleeto day aan qoraynaa control iyaan taabanay saan inay dhacdo waa rabi oo maaragtay fiiri waxaan rabnay annaga saddexda ugu dambeysa keliya saddexda erey ugu dambeysa rabnay day inuu soo saaro, laakiin wuxuu soo saaray day haddana day next day. macnihii gana assume saan inaa waxaan raadinayno waa inaa u sheegtid marka aan noqono marka aan dhahno may waxaan rabnaa day aan rabnaa inaa ka wada dhigtid kaas marka day ka wada dhig day uu ka wada dhig. casharkan clipkan waxaan kusoo qaadanay flash fielka iyo sida u maaragtay handy uu yahay shaqadaada more efficient uu ka dhigayo. pretty much very quickly a lot of stuff u sameysan karta u qabsan kartid. badanaa waxaan kula taliyaa dadka flash fielka waa very magical, waa very interesting way of maaragtay managing files. waxyaalo badan ku sameyn kartid inay bartaan inay isticmaalaan intay maantana ay wax qori lahaayeen ay record garan lahayn. waxaan filayaa exceladii hore excel 2013 wixii ku horreeyay malahana u malaynaya waa kuwii dambe waaye flash field inuu maaragtay uu ku shaqeynayo. marka intaas uu ka egyahay casharkeena maanta. casharka dambe aan isku arkaynaa. nabadgelyo.